waxaan rabaa tilmaam yar inaan ka bixiyo duruufaha kalifay inaan xildhibaannimada u istaago muddaan xamar deganaa 12 sano macallin baan ka noqday researcher baan ka noqday hay'ado caalamiyan u shaqeeyay dawladdan ku biiray wali qaybta ugu dhib badan oo amniga aan gaashaanay ka soo shaqeeyay xoogaalnimadeedii markaan arkay xaaladda Soomaaliya ay ku sugan tahay guud ahaan gaar ahaan siyaasadda Soomaaliya federaalka ee Muqdisho inaga jirta waxa ii muuqatay inaan wax ku kordhin karayo markaan arkay una darsay xoogaal u noqday taana waxaan oola jeedaa inaan noqon doono xildhibaan aan xamar kala baranayna xamar yaqaan iyo federaalka siyaasadda koonfurta Soomaaliya ka jirta iyo maamul goboleedyadaba aan barasho ugu soconay khabiir ka soo shaqeeyay kuna dhex jiray ogna taladu iyo khaladaadku meesha yaalaan sababta koowaad waa sababta labaad inaan maadaama aan muddo ka soo shaqeeyay qurbo iyo Muqdishoba in aan isu soo dhaweyn fara badan ay mar walba aan ka dhex abuuri karayo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo aan ogahay khilaafaadka hadda jiray inay tacaddi badan amniga iyo horumarkaba ay ka baajiyeen Soomaaliya oo ay suurtoobi kartay haddii wada jir iyo wada shaqeyn jir lahayd maanta meel ka duwan iyo xaaladda duruufaha hadda taagan iyo duruufaha aad ka baqaysaan gaalka ee Muqdisho inay ka dhacdo oo taagnaanshaha oo media la isku marinayo hadallo adag oo aad dareemaysaa mararka badan inaad maqlaysaan 91 baa loo noqonayaa waxaas jawigaas oo idilay waxa baaqan karayay haddii maamul goboleedyadu iyo dawladda federaalka ay si dhab wada shaqeynayaan doorkaana waxa iska la xildhibaanada waddanka federaalka oo ahaa inay marnaba halkaas la gaarsiin waxaan filayaa oo rajaynayaa haddii aan doorkaas maanta joogi lahaa inaan maanta aan sidii hadda u kala fogtay xaaladdu ayna u kala fogaateen aan isku soo dhaweyn lahaa waxaan rabaa maanta inaan maadaama bacaadweyn aan kaga dhawaaqayo xildhibaannimada iyo musharaxnimadayda hal qiso iyo hal ballanqaad inaan inta sameeyo ballanqaadkaasna aan u jeedinayo baaqan u dirayo dhammaan xildhibaanada Soomaaliyeed maahan kuwa Puntland kaliya dhammaan xildhibaanada Soomaaliya 275 xildhibaan ee soo bixi doonta haddii aan ka mid noqdo maanta waxaad iga qoraysaan oo public aan ku sheegayaa xildhibaan 4 sano ah ma idinka dalbaya waxaan idinka dalbaya xildhibaan 2 sano ah 2 sano markay la gaaro maalinta la ii doorto 2 sano ay ka soo wareegtana ina halka inta idinkugu imaado aan idin weydiisto ma idin soo celiyaa xubintii mise waa idinkugu shaqeeyay oo labada kale ayaan sii shaqeeya taasina hoos ma noqon doono hadda codkiina kalsoonidina isiisaan xildhibaan maalinta doortaan ay kugu dambayso oo 4 sano idinka maqlaanaya waxa aan dalbayaahi waa 2 sano kadibna inaan idinku soo noqdo idinka iyo xubnihii idin doortay goobta laftigeeda ay ugu tiraadaan loo wareejiyo ama heblaayo ama hebel noogu wareeji anaguna aan iraahdo sida hadda u ballanqaaday hortiina clipkan ay iga duubaysaana aad soo hor dhigtaan ballanta ballanteedna ahayd waad dhigaysaa aan idin dhigo ballanta ahayd waa noo shaqo tagaysaa laba kale aan idin shaqo tago waxaan soo noqonayaa arimihii bacaadweyn oo aynu taabanay oo ay ka mid tahay jaamacadda anu macallin baan muddo badan ahaa jaamacadda bacaadweyn ee maanta halkaan laga sharqamiyay hadda ma ballanqaadayo oo keliya inaan hadday lay doortay haddaan lay doorane haddaan ka bilaabaya dhagax dhigayaa contributionkii koowaadna oo $10,000 maamulka iyo aniga ka wada hadlayna waanu ku wareejin ku bilaabay faraha badan loo gaalkacyo dhooban iyo garowe oo ergaday odayaasha ku mashquulsanay inay banaanka u soo baxaan sidan oo kale oo ay dadka la hadlaan oo ay banaanka soo dhigaan waxa ay rabaan ee ay noqon
musharaxiin odayaal iyo erga mugdi inta wax ku kala goosta codkoodana ku qaata dib dambana aan ugu soo noqon dadkii doortay ee sidaanoo kale ay ballan qaadaan mid walba inuu 2 sano ka bacdi dadkii codka siiyey inuu inta u soo noqdo wixii uu ka ballan qaaday uu meesha ka sheego haddii ay rabaanna loo furo inay bedelan karaan oo uusan noqon shaydaan cambar helo cararay soona noqdo maalintii la doorto wassalaamu calaykum